السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada dhammaan asxaabta ku xiran channelka hagaagtuka. waxaan isoo gudbiyay maanta muuqaal cusub. muuqaalkaas oo ah waxay ahayd qiso dhab ah oo ku dhacday ninkii jilay Waxshi sad wada garanaysaanba ee ku jiray qisadii nabiga sallallahu alayhi wasallam. sidaas ay tahayba ninkani Waxshi waxa uu ku noolaa wadanka Liibiya. waxa uu ahaa nin iska danyara. waxa uu ka shaqayn jiray hotel kaas oo ka ahaa kuwa fiiqa banaanka. waxaana ku soo degi doona hotelka directorka filimka sameynay iyo qaabka loo sameeyay iyo dadka ku jira. ninka dhan ay keenay ayuu ahaa, laakiin ninkani ma ahayn nin director, nin la yaqaano, nin la doqdo, waxaas oo dhan ma ahayn, balse wuxuu iska danyara, hooyadii u shaqeeya, iska caawiya. isagoo sidaas ay tahay ayuu haddana waxaa dhacday in directorkii filimka waday uu yidhi ninkan ku soo baxaya, sababtoo ah ninkan ayaa aad u eg sidiisana u madow. waxaa laga keenay wadanka Liibiya. markii laga keenay filimka la bilaabay jilistiisii iyo samayntiisii ayaa ninkan la soo qabtay. ninkan markii la soo qabtay intaan filimada lagu sii daynin dhammaan intuuna noqon isagoo hortaba aan idinka hordhicinay intuuna noqon director ayaa waxaa dhacday ninkan in la soo dooqday oo uu keenay directorku uu yidhi ninkani isaga inoo qabanaya qaybta Waxshi isaga galaya. kadib hooyadii ayaa daawan doonta filimka muddo kadib markii la soo daayay la soo jilay. hooyadii markay daawato waxaa dhacday ninkani in dhammaan laga sii wada daayay TV-yada caanka oo laga sii daayay filimka asxaabi. kadib waxaa dhacday inay hooyadii daawato isagoo oo dilay Xamse. kadib waa ay xanaaqdaa hooyadii, waxay ka cayrisaa gurigii. marka ay ka cayriso guriga ay ka tag iga bax ani inankayga matiid waayo waxaaba tahay ninkii dilay Xamse. kadib hooyo waa filim la jilay, waa ay aamini weydaa ilaa ma uu la hadlo directoradii iyo ninkii jilayay ilaa Xamse ilaa ma mar dambe loo sheegay inuu ku jiray Xamse oo ay ahayd filim la jilay oo la sameeyay kaliyeeta uunan isagu Xamsaha dhabta uunan isagu dilin ayaa loo sheegay. kadib waa ay xaqiiqsatay, kadibna waa ay ku soo celisay gurigii oo waxay ku tiri ku soo laabo. please asxaabta qaaliga waxaan idin codsanaynaa in channelkana subscribe noo saartaan, like-tan aad noogu dartaan, kuna soo dhawaada asxaabteena qaaliga ah. wad mahadsantiin dhammaantiin.